insha Allah tacaala maanta casharkeenu waxa uu ku saabsanaan doonaa sida loo isticmaalo font tag-ga markaan joogno HTML documents-ka. waxaa kaloo eegi doonaa paragraph and align attribute. paragraph-ka iyo marka alignment-ka lagu sameynayo oo bidix baad ku align garanaysaa midig mise dhexe. waxaa kaloo arki doonaa HTML styles-ka sida loo sameeyo HTML styles-ka iyo waliba HTML colors-ka la isticmaalo kala duwan iyo HTML comments-ka. fadlan haddii aad ku cusub tahay channel-ka subscribe garee si ay kuu soo gaaraan casharada qiimaha badan ee soo socda iyo content-ka kala duwan ee channel-ka la soo gelin doono. haddii video-gu ku cajibo fadlan like saar. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا ليبان ميديا. واي هداينو بلونو عشر كينا مانتو حي قضبك كوالي يعني كهل دونا حنقون دونا فونت تاج. تاج الله يقانو فونت يو سيدا الله يستعمالو. waxaan eegi doonaa attributes kala duwan oo size iyo face iyo color ay kamid yihiin. waxa kale eegi doonaa fonts-ka caanka loo isticmaalo samaynta web pages-ka kala duwan marka farta lagu qorayo ugu caansan baan eegi doonaa. size-ka iyo values-ka lagu isticmaalo oo markasta ay noqon doonaa size-ka 1 ilaa 7 aynu eegi doono. sidoo kale waxaa jirta color attribute-ka badanka ma support gareeyo HTML5-ku. waxaa ka fiican inaad isticmaasho CSS adigoo internal ama external ama yani noocyadii kala duwanaa CSS ha ahaadeen. waxaa kaloo in eegi doonaa paragraph-ka iyo align attribute-ka lagu dhex isticmaalo paragraph-ka. haddaba kan koowaad font tag-ga aynu isla eegno si practical ahaana. waxaynu soo furan doonaa text editor. marka aynu soo furano text editor-keena Atom waxaynu marka ugu horeyso isla eegi doonaa font tag-ga. waxaynu qoraynaa qoraal inagoo isticmaalayna font. waxaan odhanaynaa Liban Media font waan kusoo xidhayaa. okay haddaba attributes-ka lagu isticmaalo tag la yidhaahdo font ayaynu eegi doonaa oo ugu horeeyo size-ka. fartan size-keeda inteed ka dhigaysaa waxaad isticmaalaysaa 1 ilaa 7 inta u dhexaysa. tusaale ahaan waxaan isticmaalnay number 7. control S baan taabtay waan save gareeyey. dabeetana waxaan soo furanayaa web page-kii baan soo furanayaa. markaan soo furto waxaad arkaysaa qoraalkeeni inuu noqday far waaweyn oo numberkii size-kii ugu weynaa ah oo number 7 ah. waxaa kale in eegi doonaa marka waxaad isticmaalaysaa 1 ilaa 7 inta u dhexaysa size-ka. waxaa kale in eegi doonaa sida loo bedelo farta nooceeda oo face baad qoraysaa equal double quotes. waxaa leedahay marka faraha ugu caansan ee aynu isla eegi doonaa waxay noqon doonaan kuwa waxaa ka koow ah Arial, Comic Sans MS, Lucida, Sans Unicode, Arial Black, Courier New Times New Roman, Arial Narrow, Impact iyo Verdana. waa adu kuwa common-ka ah la isticmaalo. balse waxaad isticmaali kartaa font kasta oo computer-kaaga ku jirta oo isleedahay way qurux badan tahay. haddii aad doonayso inaad heshid magaca font-ka waxaad tegi kartaa Word-ka. dabeetana font-kii baad magaceeda soo eegaysaa. dabeetana waad soo koobiyeysanaysaa. waxaad dabeetana ku paste garaynaysaa HTML document-kaaga. marka font kasta oo jirta adduunka waad ku isticmaali kartaa HTML-ka. inagu markaa waxaynu eegi doonaa hadda Comic Sans taasaan eegi doonaa. Comic Sans waxaan soo furanaya markaa document-keenii control iyo V baan taabanayaa. control S baan idhi. haddaba aynu soo eegno page-keeni refresh baan ku sameynaynaa. refresh markaan idhaahdo as you can see sida aad karto Liban Media waxay noqotay fartii Comic Sans ayay noqotay.
waayahay haddii aan far kaloo aan aad u xiiseeyo ayaa jirtaa oo runtii aad u qurux badan oo la yidhaahdo century Gothic regular kaa waxay kala leedahay regular bold italic ay kala leedahay marka just imika waxaan ka dhignaa regular waayahay control s refresh baan sameynayaa waayahay okay kisaan waa isbedeshay fartii marka hadba farta jeceshahay ayaa aad halkan marka faceku waxa uu qabtaa baan nidhi fontka ayuu bedelayaa oo uu ka dhigayaa fontka hadbaad jeceshahay marka fontkuna kaas wax kale eegi doonaa attribute-ka kala raahday color isaguna sheegaya farta nooca ay noqon doonto colorkeegu color equal double quotation dabeetana waxaad gelinaysaa blue tan control s waxaad jeegaraynaa marka inuu isbedelinay kale sidaad arkaysaan fartii waxay noqotay far blue ayay noqotay waaya qaybteena koowaad markaas intaas ayay ka hadlaysaa haddaynu u gudubno qaybta labaad paragraphka iyo align attribute kasta loo isticmaalo waaya waxaynu qoraynaa halkan hore sanu soo baranay paragraphka this is my first paragraph dabeetana waan soo xirayaa taggii paragraphka okay haddaba waxaan isticmaalayaa attribute-ka loo yaqaano align oo iyadu runtii sheegaysa iminka markaynu web page-keena joogno tusaale ahaan iminka wuxuu yaallaa waa bidix weeyaan mar dhexdaad dhigaysaa marna waxaad dhigaysaa midigta marka align-ku waxay faa'iideynaysaa hadba dhinaca aad dhigayso inaad sheegto align equal double quotation marka waxaan odhanayaa center marka afar attribute afar value isticmaali kartaa center right left iyo justify way marka center marka la control s raahdo refresh haddaan ku sameeyo waxaad arkaysaa paragraphkeeni inuu centerka u yimi haddaan idhaahdo leftiga gee ama right aan idhaahdo right-ka control s waxaad arki doontaa iyadoo paragraphka u tegay midigta okay kaasna waxa weeyaan paragraphka iyo alignmentka sida loogu sameynayo qodobka saddexaad ee aynu ka hadlayno waxa weeye HTML styles in uu leeyahay HTML-ku design garin kartid kalarkiisa waxiisa oo dhan bedeli kartid caadi ahaan default style-ka uu HTML-ku leeyahay waxa weeyaan background color-ku waa cadaan fartuna waa madow marka background waad bedeli kartaa color-ka waad bedeli kartaa farta okay marka si aad u bedesho ayaa wax isticmaalaysaa style attribute tusaalahana markaa eegi doonaa okay aynu tagno text editor-keeni way iminka tusaale ahaan body waxa aynu hore usoo sheegnay casharadeeni koowaad in inta visible-ka ah ee content-ka aad soo dhigaysid page-ka aad halkan lagu qoro labada tag dhexdooda marka inta body-geenu dhan baa waxaan odhanayaa style-kiisa qaabkiisa waxaad ka dhigtaa marka waxaan sheegayaa background color-ka waxaad iiga dhigtaa marka column isticmaalaya laba dhibcood waxaan odhanayaa marka waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan waxaad iiga dhigtaa dodger blue waa color weeyaan dabeetana control s baan sameynayaa control s waxaan tegayaa marka page-keeni refresh baan ku sameynayaa sidaad hadda arkaysaan fartii page-keeni wuxuu noqday blue dodger blue color-ka la yidhaahdo noocan ah okay waxa kaloo aad sameyn kartaa marka attributes kala duwan ayaad ku isticmaali kartaa style-ka property badan isticmaali kartaa yiraahdo okay marka aad sameynaysid syntax-ka ama rule-ka qaabka aad u qoraysid style-ka waxa weeyaan marka hore style baad qoraysaa okay property marka waxaanu sheegnay talaasaan kusoo qaadanay background color-ka waxa kaloo sameyn kartaa color oo farta bedelaya waxa kaloo jira font family baa jira oo sheegaya farta nooceeda markii hore font baan isticmaalaynay tag la yiraahdo font
ayaan isticmaalaynay si aan u bedelo farta nooceeda laakiin sida saxda ah styleska ku fiican inaad ku isticmaashid font size baa jira oo farta size-kayga sheegaya text align farta dhinaca ay noqon doonto iyaduna ayaa jirta oo aad iyadana qeexaysid okay haddaba aynu eegno bal qaabka aynu u isticmaalayno styleska waxaan tagayaa marka text editor-kaygii sidaad arkaysaa waxaan soo isticmaalay background color marka aad doonaysaan dhowr property isticmaashay waxay u dhaxaysiinaysaa semicolonta okay marka waxaan oranayaa haddaba farta color markaan yiraahdo yani waxaan ka dhigaynaa farta bedel colorkeega waxaan ka dhigaynaa waxaan ka dhigi doonaa white waan ka dhigayaa okay semicolon waxaa kaloo doonayaa inaan bedelo font size farta inta la eg tahay waxaan oranayaa waxaad iga dhigtaa 8 pixel semicolon marka طبعا pixels waxa loo isticmaalaa size-ka loo isticmaalaa waxa kaloo bedelaya oo kale Allahumma salli ala Muhammad align dhinaceeban ka dhigaa waxaan ka oranayaa center iga dhig align colon waxaan oranayaa center waayahay intaasoo dhan waan bedelay dabeetana control s ma samaynayaa waxaan tegayaa page-keenii refresh baan ku samaynayaa sidaad arkaysaan hadda fartii oo dhan waxay noqotay caddaan alla ilahay waxa inagu soo haray align-kan marka align-kan paragraph-kan ka saaraynaa si guud ahaan centerka ay isugu wada tagaan okay marka imika dee waa inay ka soo saarnay refresh haddaan ku samayno waxaad arkaysaa sorry halkan waxaan odhanayaa text align okay text align center inta hore iska masax waayahay waxaan soo xirnaa marka way control s page-keedii baan tegayaa refresh baan ku samaynayaa okay asaad arkaysaan wixii oo dhan waxay isla tegeen centerkay tegeen sidoo kale caddaan bay farta noqotay marka laga reebo farta aynu hore usoo sheegnay oon blue ka dhignay marka haddaan blue imika ka saaro caddaan bay wada noqonaysaa fartu okay marka sidaas ayaa loo isticmaalaa styleska waxaad bedeli kartaa background-ka color-ka farta size-ka farta alignment-ka farta iyo waxyaalo kale oo badan oo property badan buu leeyahay kaasina waxa weeyaan waa style-kii weeyaan iyo sida loo samaynayo HTML styles okay waxaan uga gudbaynaa HTML colors colorada kala duwan ee adduunka ka jira waxaad ku dhex isticmaali kartaa HTML document-kaaga ama page-ka aad samaynayso ayaad color ugu dhigi kartaa colorada badanka magacyadooda marka la eegayo coloradu aad bay fara badan yihiin marka waxa la isticmaalaa hexadecimal value baa la isticmaalaa color name-na waa isticmaali kartaa magaca uu leeyahay colorku sidoo kale waxaad isticmaali kartaa hexadecimal value u gaar ah colorkaas waaye si aad ugu soo darto markaa colorka waxaan isticmaalaynaa attribute-ki style property waxaan isticmaalaynaa color la yidhaahdo value-ga waxay sheegayaan markaa colorka noociisa ma buluugba ma casaanba ma akhtarba okay ama sidoo kale waxaan sheegi karaynaa hexadecimal numberkii ama value-ga uu lahaa colorkaasi waaye haddaba si imika aynu sheegno colorka hore waan soo aragnayba colorka waan soo bedelnay oo waan white ka dhignay balse waxaan eegi doonaa bal HTML colorska markaynu eegno color name iyo hexadecimal value u dhigma markaynu black qorno waxaan qori karnaa black value-ga ama hashtag iyo 60 hexadecimal hexa waxay u taagan tahay waa 6 number weeyaan hexadecimal waa 6 number marka color kastaaba waxa uu leeyahay magac iyo hexadecimal value equivalent ku ah waaye haddaba midowgaasaan doonaynaa inaanu ku isticmaalno farteeni oo dhan ka dhigno waxaan tegaynaa text editor-keenii atom markaynu tagno waxaaynu tegaynaa marka halkan colorka aynu white ka dhignay ayaa waxaynu ka dhigaynaa iminka hash dabeetana waxaan odhanayaa 00000 waa 6 number oo u dhigna madow black ama waxaad isticmaali kartaa hexadecimal value-giisa u dhigma control s haddaan idhaahdo oo aan tago web page-keenii oon refresh ku sameeyo
as you can see fartii oo dhan black bay noqotay sidaas si lamida kalarada kale waxay leeyihiin hexadecimal value u gaara haddaan yellowga doonaya waa 4f iyo 20 waa 4f iyo 20 okay 4f iyo 20 control s ma sameeyaa refresh ma sameeyaa yellow bay noqotay okay yellow baad isticmaali kartaa ama hexadecimal value baa lagu dhigmaa oo ah hashtag ama hash 4f iyo 20 okay kaasina waxa weeyaan html colorska waxa inoo soo haray insha Allah taala aan isla eegi doonaa casharkan html comments waxa la yiraahdo ama yani comment waxa la yiraahdaa tusaalahan code-kii aad qoraysay haddii imika tusaalahan website baad dhisaysay website-ka aad dhisaysay haddaad comments u samayso qof haddii adigu waa meesha ka baxayd abooska aad ka tagtid qofka labaad ee hagaajinaya website-kii waxa u fududaanaya inuu kala garto shayadii haddaba commentsku waxay information bay ka bixinayaan code-kii aad qortay haddii aan tusaalahan eegno okay waxa markaa comment markaa isticmaalaya syntax ba jira qaab loo qoraa jira waxaad sameynaysaa angle brackets ka sameynaysaa calaamatul cajiib laba dhibcood sidaad arkaysaa imika fartii oo dhan bilaa waxay noqotay comment bay noqotay marka imika waxaan qorayaa halkani waxaan leeyahay this code is used to change the style of the body okay markaan dhamaystiro comment-kii qoraalkii aan doonayay inuu qofku arko marka dabcan commentsku page-ka kama soo baxayaan laakiin se qofka editor-ka ama hagaajinaya wax design-ka sameynaya ay ka caawinaysaa inuu garto qaybtan inay tahay qaybtii body-ga style-keeda lagu bedelay marka waxaan ku soo xirayaa hyphen-ka labada hyphen ama minus angle brackets kan soo xiraya marka qofku markuu imka sida uu arko wuxuu arkaya this code is used to change the style body marka hadduu doonayo style bedelo markiiba toos wuxuu imanaya meeshii uu ka bedelay marka taasina waxa weeyaan html comments-kii iyo qaabka loo isticmaalo oo fadlan haddii ku cajibiyo video-gani ama aad ka faa'iiday wax fadlan like saar channel-kana subscribe garee si aad noogu dhiirigelisid in aanu sameyno casharo iyo content inta ka badan aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu